madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si ku meel gaar ah ugu shaqeynaya magaalada Dhuusamareeb isagoo halkan ka hagaya howlgallada lagu ciribtirayo qawaarijta ayaa waxa uu maantay magaaladan Dhuusamareeb uga gudoomiyay warqadaha aqoonsiga danjiraha cusub ee Midowga Yurub Marwo Karen Johansson. madaxweyne Xasan Sheekh iyo danjire Karen ayaa ka wada hadlay xoojinta taageerada Midowga Yurub ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan howlgallada sifaynta qawaarijta iyo sugidda amniga dalka. madaxweynaha ayaan u xaqiijiyay danjiraha in dowladda federaalka Soomaaliya ay si buuxda ula shaqeyn doonto una fududeyn doonto gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo egmaday. danjiraha cusub ee Midowga Yurub Marwo Karen Johansson oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay guulaha laga gaaray dagaalka lagu ciribtirayo qawaarijta ayaa madaxweynaha la wadaagtay dadaalka ay ku bixin doonto adkeynta xiriirka iyo wada tashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Midowga Yurub.